bulshadu adeegaya ayaa jira ciidan kastoo bulshadu adeegayo oo aan mooryaan ahayn oo aan isbaara dhiganaynin oo aan kufti sameeynin oo aan dhibaato geysanaynin anaga waxaan rabnaa in la dhiirigeliyo la qarameeyo ciidamo laga dhigo xuquuq yeeshaan oo dalka iyo dadka ay u shaqeeyaan sidaas la mid ah ciidan kasto ama maleeshiya kasto xun inta is abaabushay isbaaro iyo kufsi iyo ciyaal suuqnimo isu abaabushayna in waxaan rabnaa maaragtay wadada toosan loo jiheeyo haday diidaan wadada toosan oo in kufsiga shacabka ka daayaan in dilka ka daayaan in isbaarada ka daayaan in maaragtay carqaladeynta iyo shacabka iyo argixinay ay ka daayaan haddii ka diidaanna in wixii sharciga ka qabo in maaragtay la mariyo ayaan rabnaa anaga oo ilan ma loo dulqaadan karo in maleeshiyo maaragtay meel inta ka timaado ay gobolka meel kamid inta tagto ay isku abaabusho ay isbaara dhigato ay kufsi geyso because dadka kufsanayaan dad Soomaaliyeed waa because wadooyinkii ay u socdaan in isbaara dhigtaan wadada markii isbaara la dhigto meel qaarkood maxaa ka dhalanaya wadadaas waxa laga yaabaa qaarkood hadda ka soo qad wadadan oo afgoy ka baxdo oo ilaa ay beedhabo aada ilaa ay gada aada ilaa ay Soomaali galbeed ilaa ay NFD dad ilaa ay dhowr iyo 10 milyan oo Soomaaliyeed oo qaarna ay ku nool yihiin jamhuuriyadda Soomaaliyeed ku nool yihiin qaarna dhulka Soomaaliyeed oo laakiin maaragtay dawladda kale hadda ee maamulaan ay ku nool yihiin baa dhibaatooyin ay u geysanayaan because waa marinka ay soo mari lahayn qof kastana diyaarad ma heli karo qof kastana suuragal mu ah inuu meelaha qaarkood maro marka dhowr iyo 10 milyan gabdhahood baa mara meesha hantidood baa marta ninka rabo inuu tuulo kale ka imaaday oo jidka inta soo istaago meel yar oo jidka maaragtay inta isbaara dhigto oo gabdhihii ku kufsado ku dilay kaas ma qaadanayno mana ka yeelino insha Allah hadii uu diido inuu wanaaga Soomaaliyeed in gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed aabiyaalka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed inuu nabad geliyo diidana wuxuu sharci ka qaba la marina waa la iska dhicinaa gacan adagaan ugu qabanaa